بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabto akhbaaraad cusub oo muhiim ah ayaa ka soo kordhay dagaalka ka soconaya marinka Gaza qaybtan waxaan u kala qaybin doonaa saddex qaybta hore waxaan ku ogaan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee soo kordhay iyo xasuuqa mar kale ka dhacay marinka Gaza qaybta dhexe waxaan ku falanqeyn doonaa Cabdifataax al-Siisi saddexda arrin oo uu ku bedelan lahaa hadii uu ogolaan lahaa shacabka marinka Gaza in loo daadgureeyo gacanka Sinai tan saddexaadna waxaynu ku ogaan doonaa cadeymaha dowladda Turkiga gaar ahaan qoboro Turkiga u dhalatay ay soo bandhigeen ee nooca gantaal ee lagu garaacay cisbitaalka Al-Ahli iyo gantaalkaasi dowladaha haysto ayaan ogaan doonaa soo dhawaada mar kale ka mid noqo saaxiibadeena aad baad u mahadsantahay waxaan marka hore ku hormaraynaa wararkii ugu dambeeyay mar kale wax lagu tilmaami karayo xasuuq ayaa waxa ay maanta ay ka dhaceen marinka Gaza lan natruka Gaza wahdaha ومدحويني هراء الدولة مصر محمد مرسي وحاو عان كو أها إريادة أدأدك غزة مرنبا كاليجاد كما تجد دونه سيدو كالوحو عان او كن نقضي هدلين اللي باحية دينا سيئيسان إذين عنين إيها داد كان آد كو تيرادا بدن وحي صلاة كدو كدين اسمها ودادا عان كأه تيرن ستريت مقالة لندن دالك إنجريسكا وانا داد موجين يي سيدا يقرب تاقيهن شعبك فلسطينيين waxaana ay dalbanayeen in la joojiyo dhibaatada lagu hayo dadka rayidka raashinkan aad arkayso waa in ka badan 27 tan oo raashin ah oo ruushka uu ugu deeqay shacabka Falastiiniyiinta waxaana la geyn doonaa marinka Gaza halkaas oo wararka soo baxay ay sheegayaan in maanta la furayo ilaa birina qorshe uu yahay gargaarka ugu horeeya in la gaarsiiyo shacabka Falastiiniyiinta maanta mar kale marinka Gaza waxa ka dhacay arrin lagu tilmaami karayo musiibo weyn iyo xasuuq dadka shacabka ah lagu bartilmaameysanayo diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa duqeeyay dhismayaal waaweyn oo lagu magacaabo dhismayaasha Al-Zara waana dhismayaal dad rayid ah ay deganayeen caruur aad u tiro badan ayaa ku dhintay duqeyntii maanta in ka badan 34 ruux ayaana la xaqiijiyay inay hal goob ay ku geeriyoodeen maadaama badankooda ay ahaayeen qoysas isku ehel ahaa oo dhismaha degan sidoo kale waxay duqeeyeen Israa'iiliyiinta diyaaradahooda dagaalka deegaanka lagu magacaabo Deir al-Balax waxaana uu ka tirsan yahay marinka Gaza halkaas oo dad badan oo muslimiin ay deganaayeen tirada guud ee dhimashada 24 saac la soo dhaafay waxay ka dhigaysaa 121 ruux oo Falastiiniyiin ah in la dilay 24 saac gudahood sidaasina waxaa xaqiijiyay mas'uuliin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee Falastiin waxayna sheegeen in 24 saac la soo dhaafay gantaalada Israa'iil ay dad badan oo rayid ay ku dhinteen waxa ka daran 3 isbitaal oo ku yaala magaalada Gaza waxa lagu waramayaa inay adeegyadii ama shaqadii ahayaan ay joojiyeen maadaama ay aad ugu yaraadeen daawooyinkii iyo waxyaabihii loo isticmaali lahaa dadka si loo daaweeyo wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaana ku dhawaaqday 3daasi isbitaal gabi ahaanba inay shaqadii ay joojiyeen iyada oo ay muuqato in ka badan 25 ruux oo dhaawacyo qaba inay yaalaan mid kamid ah isbitaalada shaqada joojiyay Mareykanka waxa uu soo saaray macluumaad ah in iyaga iyo Masar bay isku raaceen in dib loo furo marinka Rafah oo gargaarkii ugu horeeyay maalinta Biri oo Jimco ayaa la qorsheenayaa in halkaas laga gudbiyo tirada dhimashada Israa'iil askartooda waxa lagu sheegay ilaa iyo 306 inay marayso waana tiro iyaga ay soo bandhigeen maanta siyaasiyan bariga dhexe waxa muuqanaysa isbedel weyn in uu ku yimid gaar ahaan wixii ka dambeeyay markii gantaalka lagu garaacay mid kamid ah isbitaalada ku yaala marinka Gaza bilowgii qorshuhu wuxuu ahaa in dagaalka lagu qabsado marinka Gaza dadkana lagu qasbo inay ka guuraan marinka Gaza oo aadaan dhinaca iyo gacanka Sinai oo dalka Masar ah waana qorshe soo socday 10 sano ee la soo dhaafay sidaan warbixinadii hore in idinku soo bandhignay taasi micnaheedu marka waxay tahay in 2 milyan ee degan marinka Gaza lagu qasbo inay ka guuraan marinka Gaza oo aadaan gacanka Sinai laakiin arrintaasi waxa ka hor yimid madaxweynaha dowladda Masar Cabdifataax al-Siisi oo shalayba ka hor intaysan Netanyahu iyo Biden saxaafadda la hadlin isaga shir jaraa'id qabtay sheegayna inaysan suuragal ahayn in dadka rayidka ah laga barakiciyo marinka Gaza lana geeyo gacanka Sinai Cabdifataax al-Siisi isaga uu garab taagan yahay Olaf Scholz hogaamiyaha Jarmalka wuxuu yiri ma dadkaas la dajiyo saxaraha loo yaqaano Naqad ama Negev la yiraahdo Israa'iil ka tirsan oo dhul bannaan oo hadda dadka lagu xallin karayo halkaas la dajiyo hadalkaasi marka waxa uu diraya fariin ah dadkan waxa doonaysa dhulkooda inaad qabsataan oo aadan u ogolaanin dib dambe inay deegaankooda ugu soo laabtaan marka waxa jira 3 arrin oo Cabdifataax al-Siisi loo soo bandhigay si looga badasho in dadkani la dajiyo marinka la yiraahdo gacanka Sinai tan koowaad waxay tahay Cabdifataax al-Siisi loo soo bandhigay oo mas'uul ka tirsan Xamaasna uu sheegay in dhammaan deymaha lagu leeyahay dowladda Masar zero laga dhigo oo ama eber laga dhigo oo laga wada cafiyo ama laga dhiibo
waa qodobka koowaad oo ay ku bedelan lahaayeen in dadkan la dejiyo gacanka siinay. marka hore aan ogaano horta deynta lagu leeyahay dowladda masar sidaad arki karaysaan waxaa lagu leeyahay 165 bilyan oo dollarka Mareykanka. marka Mareykanka waxa uu yiri waa deymaha caalamiga ee dowladda Masar lagu leeyahay. Mareykanka iyo Israa'iil marka waxay yiraahdeen dhammaan deymahaasi waa laga cafinaya ama waa laga dhiibaya. tan labaad waxay tahay waxa lagu sameynayaa maalgashi xoogan oo dalkaada ah, warshado iyo mashaariic kala duwan ayaana laga hirgelinayaa gudaha dalka Masar si aad u ogolaato in dadka shacabka ah la dejiyo gacanka siinay. tan saddexaad waxay tahay Masar waxa laga doonayay oo la soo hordhigay madaxweyne Cabdifataax al-Siisi waxaan kala shaqeynaynaa sidii adiga mar saddexaad lagu soo dooran lahaa, iyada oo cid walba oo la tartamaysa Cabdifataax al-Siisi la doonayay in lagu daro ama laga dhigo kuwa dambiilayaal ah si aysan ugu yaraan xilka aysan u qaban. waxayna noqon lahayd Cabdifataax al-Siisi mar kale inuu fursad u helo qabashada xilka madaxtinimada ee dalka Masar maadaama dhawaan doorashooyin ay ku soo fool leeyihiin. dhammaan shuruudaha si loo soo bandhigay Cabdifataax al-Siisi waa uu diiday oo si dheer ayuu ula saftay dadka shacabka ah ee Falastiiniyiinta. waxaa intaas sii dheer in isbedel weyn uu ku yimid kulankii la doonayay in lagu qabto magaalada Ammaan ee caasimadda dalka Jordan wixii ka dambeeyay markii isbitaalka la duqeeyay mandiqada oo idilna isbedel weyn ayaa ku yimid. oo boqorka Jordan waa uu baajiyay kulankaasi. Cabdifataax al-Siisi wuxuu yiri iyadoo xaaladaasi ay taagantaa kama qayb gali kara kulanka madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas isagoo Ammaan jooga oo Joe Biden xitaa hawada uu soo galay ayuu dib u laabtay markii ay wax dhaceen magaalada Ramallah uu dib ugu laabtay. Joe Biden diyaaradiisii ku soo wajahneed magaalada Ammaan oo la doonayo inuu kulanka koowaad ka dhaco waxay u weecatay dhinaca iyo magaalada Tel Aviv oo caasimadda Israa'iil ah. Cabdifataax al-Siisi iyo madax badan oo Carbeed marka waxay qabaan aragtida ah waxaynu xasuusanaa 1967 wixii dhacay taa ayaana tusaale noogu filan sababtoo ah dhulkii aad xilligaasi ka qabsateen dadka shacabka ah ilaa iminka dib uguma aysan laaban. wadamada islaamkana shir ayay yeesheen maalintii shalay inkastoo wax weyn aysan ka soo bixin shirkooda haddana waxaa muuqanaysa ugu yaraan inay ka midaysan yihiin markaan iyo wixii ka dambeeya mowqifka in dadka wax loo qabto. dhinaca kale shirkad laga leeyahay dalka Turkiga ayaa markii ugu horeysay banaanka keentay cadeymo muujinaya nooca uu ahaa gantaalkii lagu weeraray cisbitaalka Al-Ahli ee marinka Gaza. shirkadda teknoolajiyadda ee difaaca Turkiga ee la yiraahdo Taroy ayaa waxay shaaci ka qaaday in marka la eego dhawaaqa, xawaaraha iyo calaamadaha laga helay gantaalkii ku dhacay cisbitaalka Al-Ahli oo dad badan oo 500 ruux ka badan ay ku dhinteen oo haween iyo caruurba ay ku jireen inuu muujinayo inuu yahay gantaalka noociisu yahay MK-84. shirkadda Taroy la yiraahdo waxa ay la shaqeysaa dhinaca teknoolajiyadda dalka Turkiga gaar ahaan shirkadaha dhinaca gantaalada quseeya. waxa kaloo shirkadda ay ka shaqeysaa madaxyada lagu rakibo gantaalada yaryar iyo kiimikooyinka sababa qaraxyada aadka u daran. sidaa daraadeed marka wakaaladda wararka ee Anadolu ayaa soo xigatay mid ka mid ah qubarrada shirkaddan oo la wareystay gaar ahaan agaasimaha shirkadda waxaana uu falanqeyn dheeraad uu ka bixiyay sawirrada iyo muuqaalada laga soo qaaday goobta gantaalka uu ku dhacay oo ahayd cisbitaalka Al-Ahli oo dad badan ay ku dhinteen. waxa uu sheegay marka calaamadahan inay muujinayaan nooca gantaal inuu yahay MK-84 kaasoo culeyskiisu u dhan yahay ilaa 2,000 oo pound ama u dhiganta 910 kilogram. marka gantaalkaasi uu qarxana waxaa ka dhasha qarax iyo holac aad u xoogan. sidoo kale wuxuu xusay in gantaalkaas uu yahay nooca satellite-ka laga hago. waxa la isweydiinayaa marka Xamaas miyay haysan gantaalo noocaasi oo kala ah. awoodda gantaalka marka la eego agaasimaha shirkadda Taroy ee dalka Turkiga wuxuu tilmaamay in gantaalka uu ka kooban yahay ku dhawaad 430 kilogram oo waxyaabaha qarxa ah laakiin guud ahaantiis waa 910 kilogram. waxa kale oo xusay marka in gantaalkaasi marka uu bartilmaameedkiisa uu si sax ugu dhaco inuu wax badan uu burburin karo. gantaalkan waxa kale oo lagu rakibi karayaa madaxyo kale oo wax qarxin kara si loo kordhiyo waxtarkiisa. waxa kale oo ka kooban yahay maadada lagu magacaabo HMX taasoo u sahlaysa inuu si sahlan ugu dhexduso shubka iyo meelaha aadka u adag. sidoo kale qabiirka Turkiga u dhashay waxa uu sheegay in suuragal ay tahay in gantaalkan loo adeegsaday bamka loo yaqaan BLU-109 ama bamka pastarka ah. bamkan ayaana loo adeegsadaa in lagu duqeeyo dhufaysyada aadka u adag, baqaarada hubka, goobaha buuraha ah. sidoo kalena gantaaladan waxaa haysta sida uu qabiirku sheegay Israa'iil waxaana ay ka soo iibsatay inta badan dalka Mareykanka. wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza waxay sheegtay in tirada dadka ku dhintay xasuuqii Israa'iil ee cisbitaalkan ay ku garaacday 2 habeen ka hor inay ku dhinteen in ka badan 500 oo ruux. waxyaabaha ka soo kordha guud ahaan macluumaadyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha